سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. من الغفلة يا عباد الله الغفلة عن الموت waxaanu shaki ku jirin dhammaanteen inaynu ku xukumannahay inay geeri nagu dhacdo aynu dhimanno. allah baa subxaanahu wa tacaala ina abuuray. allah ina abuuray baa inoo sheegay in nafta uu ina geliye uu inaga saari doono oo aynu noqon doono amwaat bacda xayaat kuwa dhintay nolol dabadeed. ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaana waa ina tusay ومن indhaha inuu saaray buu ka dhigay كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفوا لما الجارد إذا من دونتا كل نفس ذائقة الموت ماذا الجارد فقراراتي ماذا يكون معاناته ماذا يفضلاته iyo mid lagu adkeeyo lagu ciqaababa. xaqiiqada noocaasa haddoo hurda ayuu ku jiray ilaahay wuxuu leeyahay adduunya dib lagugu celinayaa ma jirto. fakashafnaa canka ghitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid maanta indhaha laguu fayday oo daboolkii qafladee kaa saaraa lagaa qaaday. indhahaagu waa bir oo kale si daran bay wuxuu arkayaan oo waad arag fiiqan tahay maanta laakiin waxba kuu tari mayso. أيها المسلمون عباد الله إن نسيان الموت والله من الشقاوة قارده ولا إلا با وحي كميتها خسارها يقول درده وحي سابتها خير درب الله وحي يطوان كوار سيدا الشر يفو الحمى ويموت كوا واعد وأوانيه قفت حمانت كوانين إياه ولا قرى كوانين إياه هدو إلا به وانيه اوينابا كمقا. ولهذا رسول كان عليه الصلاة والسلام وإن لدر دار مولى أكثروا من ذكر هذه من اللذات فربضي حصوصنا أنت كمعمعان كالقوية يا دونك يا دنيا معان سنيا نوعيا كالدون هالمرون كالشرايا وككحينايا حصوصنا أنت سوحي صابوا نغنيسا أدونك إنو نقضوا mid foojigan inuu noqdo mid xusuus badan inuu noqdo mid indheer garada oo aakhira ay u muuqato. faqad rawaa ibnu maaja fii sunanih ana nabiya calayhi salaatu wasalaam su'ila can akyasi innaas waxaa rasuulka la weydiiyey dadkan adduunyada ku nool kuweebaa u indheer garadsan faqaala calayhi salaatu wasalaam akharuhum dikran lilmowt wa ashadduhum isticdaadan lah kooda geerida ugu xusuusnaan badan uguna diyaar garow badan. ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira kuwaasi ayaa kuwa dadka ugu caqli badan sharaftii adduunyay la tegeen oo adduunyada sahay fiican bay kala tegayaan. waxaa kaloo dadka kale ay uga dheerayeen karaamata alaakhira maamuuskii iyo martisooryadii ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira uu ku diyaariyey.